خير بان ويديسن معنا نسيتها في اخره رحمه كافيتيريا waxaan leenahay raxma ilaahay muraadkeeda u saalo raxma rooble jaamac mulkiilaha meherada raxma kafeteriya magaalada Boorama ayaa halkani oo ah jaamacadda Camuud ee bariga magaalada warbaahinta gobolka Awdal ugu sameysay aftiro ay ugu tala gashay waxaana halkaasi ka hadlay qaar kamid ah warbaahinta gobolka Awdal iyagoona u mahadnaqay mulkiilaha meherada waxaan ku sugannahay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama oo maanta ay rabadaan tahay 23 waxaan halkan ugu mahad celinaynaa raxma rooble jaamac mulkiilaha raxma kafeteriya oo halkan maanta ku kulmisay dhamaanba warbaahinta kala duwan ee ka hawgasho gobolka Awdal ay ugu sameysay afurwadeedkaas oo ah mid sanadla ay warbaahintu qabsato bas maanta ay marti gelisay raxma kafeteriya aad baan ugu mahadnaqanaa waxaan leenahay raxma kafeteriya kullu markii hore waxay ahayd kulmiyaha warbaahinta halka xarunta isugu yimaadaan bay ahayd waxaan raxma aan u aqoonsanahay inay xubin muhiim u tahay warbaahinta gobolka Awdal oo goob kulmisa markaan ku jirno hawlmeedka shaqo waxaan leenahay raxma ilaahay halka ka saartay ilaahay bedel khayr qaba ku bedelo waxaan sidoo kale aan leenahay ilaahay muraadkaaga khayr qaba ilaahay ku siiyo anagoo ah dhammaan warbaahintii kala duwaneed ee gobolka Awdal waxaan maanta halkani oo jaamacadda Camuud ku lahayn afurwadareed ay noo fidisay ilaahay khayr siiyo raxma oo ah mulkiilaha raxma kafeteriya oo uga mahad celinayno afurkaasi ay noo sameysay afurkanina wuxuu ahaa ku sanad la oo sanad kasta dhamaadka bisha barakaysan ee Ramadaan aan qabsan jirnay sanadkan iyada ay naga kafaala qaaday waxaan leenahay waad ku baahsan tahay kulanka aad noo sameysay iyo sida aad noo afursay raxmo waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waynu ku mahad celinaynaa runtii inta badan kulamo noocan oo kala ma dhacaan warbaahintu shaqo iyo hawlaha lagu kala mashquulsan yahay laakiin mar haddii maanta intaas oo dhow sukantay afturkaasi si aad iyo aad ayaan raxmo ugu mahad celinaynaa warbaahintuna aad baa mahadsantahay waxaan aad ugu faraxsanahay afurkan aan kala qayb galay dhammaan saxaafadda gobolka Awdal oo ka dhacday xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama waxaan uga mahad celinaynaa afurkaasi raxma rooble oo iyadu afurkan u sameysay suxufiyiinta gobolka Awdal kuna maamustay waxaan leenahay raxma ilaahay muraadkaaga ha ku saalo waanan kaaga mahadnaqanaa waanan soo dhaweynaynaa afurkaasi waxaan kaloon bahda saxaafadda aan leeyahay afurkaasi si wanaagsan ayuu inoogu dhacay waxaanan dhammaanteen u ducaynaynaa gabadhaasi inoo suurtogelisay inay ina kulansiiso afurkan ay noogu qabatay xarunta jaamacadda Camuud waxaanan leenahay raxma ilaahay muraadkeeda ha u saalo waana afur wanaagsan ilaahay khayrka bisha Ramadaanna hana siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxa hadalka ka daba qaatay Axmed Diiriye Ciiltire oo isagu kamid ah warbaahinta gobolka Awdal isla markaasina ku hadlayay afka meherada raxma kafeteriya oo ay soo wakiilatay mulkiilaha meheradu ilaahay baa mahadle waxa maanta oo ay taariikhdu ay ku beegan tahay 14 bishii afraad ee sanada 2023 aan halkan ku yeelanay afurwadareed ay u sameysay mulkiilaha raxma kafeteriya ee bartamaha magaalada Boorama raxma maanta waxa ay iskugu keentay dhammaan warbaahinta kala duwan oo awalba sanadla ay u ahayd inay markay rabadaan oo kala ay tahay ay hal mar isku yimaadaan maanta ay raxma dhammaanba martiqaadka ay u fidisay waxaana ka soo qayb galay wariyaasha kala duwan ee gobolka oo ugu horeeyay suduwaha wasaaradda warfaafinta iyo dhammaanba warbaahinta kala duwan oo aanan maanta cidi ka maqnayn waxaan ugu mahadnaqaynaa martiqaadka sharafta leh ee ay ku maamustay wariyaasha raxma rooble jaamac oo aanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro halkii aad ka soo saartayna bedel khayr qabaan ku rajaynaynaa wax kasto muraadooda aad leedahayna ilaahay ha ku fududeeyo afturkani wuxuu ka mid ahaa afturadii aan awalba joogtada ahaa ee aynu warbaahintu iskugu yiman jirtay waana mid walba sanad walba aanu iskaga warhayno aanu ku kala war qaadano aanu xiriir ku leenahay oo aanu isku soo dhaweyno kolka dhammaan wariyaashii soo ajiibay waanu mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay kameramaanadii iyo howlwadanadii kala duwanaa ee afturka iyo afturwadareedkaaba maanta iskugu kaaya keenay iyo dhammaanba bahda jaamacadda Camuudna aad baan ugu mahadnaqaynaa wad mahadsantihiin suxufi cishqi jaamacadda Camuud ee bariga magaalada Boorama